soonka iyo bukaanada qaba cudurka macaanka waa mowduuc muhiim ah gaar ahaan inta loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo dad badan oo qaba macaanka ay doonayaan inay soomaan. Muuqaalkan waxaan dulmar kooban kaga bixinaynaa sida soonku u saameeyo dadka qaba macaanka iyo talooyin caafimaad oo muhiim u ah. Marka qofka qaba macaanka uu soomo, waxa isbedel ku yimaada heerarka sonkorta dhiigga sababtoo ah cuntada oo aan la cunin inta lagu jiro maalintii. Soonku wuxuu kor u qaadi karaa halista qofku ku jiro inay hoos u dhacdo ama ay kor u dhacdo heerarka sonkorta dhiigga ku jirta. Arrintan waxay inta badan saameyn kartaa bukaanada qaadanaya daawooyinka macaanka ama insulinta. Bukaanka qaba cudurka macaanka nuuciisa koowaad ee u baahan insulin joogto ah ayaa laga yaabaa in uu khatar sare u galo sonkorta hoos u dhacda, maadaama uusan jirku si fiican u maamuli karin heerka sonkorta dhiigga. Bukaanada noocaana waxaa lagula talinayaa inay iska daayaan soonka haddii ay halis weyn u arkaan. Dadka qaba macaanka nooca labaad, soonku waxa uu noqon karaa mid u baahan in laga baaraan dego, gaar ahaan haddii sonkorta dhiigga aan si fiican loo maamuli karin ka hor bisha Ramadaan. Soonka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka qaba macaanka nuuciisa labaad ee miisaankoodu aad u sarreeyo, maadaama uu yareyn karo culayska jirka. Soonku waxa uu gacan ka geysan karaa inuu hagaajiyo caafimaadka dadka qaba macaanka nooca labaad, lana hagaajinayo insulinta iyo heerarka kolestaroolka dhiigga. Cilmibaarisyo kala duwan ayaa lagu tilmaamay in soonka laga yaabo inuu yareeyo halista cudurrada wadnaha, kuwaasoo badanaa lala xiriiriyo macaanka nooca labaad. Haddaba maxay tahay talooyinkan u hayna dadka qaba macaanka ee doonaya inay soomaan? 1. La tasha dhakhtarka ka hor intaadan soomin. Waa muhiim in qofka qaba macaanka uu la tashado dhakhtarkiisa si loo qiimeeyo in soonku ku habboon yahay xaaladdiisa iyo in kale. 2. Cuntada iyo cabitaanada. Waa inaad door bidaa cuntooyinka ay ka buuxaan fitamiinada iyo nafaqooyinka noocyadooda kala duwan. Sidoo kale waa muhiim inaad cabto biyo kugu filan si loo yareeyo fursadaha fuuqbaxa. 3. Kormeerka sonkorta dhiigga. Dadka qaba macaanka ee sooman waa inay si joogto ah u cabbiraan heerka sonkorta dhiiggooda maalintii iyo habeenkiiba si ay uga hortagaan khatar caafimaad. Isbitaalka kalkaal waxaa door muhiim ah ka qaataa caawinta dadka qaba xanuunka macaanka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo doonaya ama ku tala jira inay soomaan bisha Ramadaan. Isbitaalku waxa uu bixiyaa la talin caafimaad oo dhammaystiran, isagoo diiradda saaraya baahiyaha gaarka ah ee dadka qaba xanuunka macaanka.